dhabahantii bangiyada Soomaaliya door weyn oo muhiim ah oo facaal ah bay ka qaateen horumarka dalka ay ka qaateen soo celinta magacii iyo sumcaddii iyo maamuuskii waddanka intaan ka warhayo bangiyadu waxay sanadkii waddanka geliyaan maalgelin aan ka yarayn 500 milyan ay waddanka geliyaan u malaynmayo hay'ado dibadda oo bixiya inay jiraan u malaynmayo waxa waddanka aragteen oo shirkadka weyn ku shaqeeyaan oo kuwa yar ku shaqeeyaan ama ha noqdeen caafimaad ama ha noqdeen warshado ama ha noqdeen shirkad yar yar waxa maalgeliya bangiyada marka bangiyadu door weyn bay ka qaateen Sombanki ahaana waxa isleeyahay door weyn baa kaga jirtaan horumarkaas arrimaha asaasiga ah markaynu ka hadlayno bunuugta islaamka iyo oo aan jecelahay dadku inay ku baraarugaan muhiimna ah yani hadda culimadu waxay ka hadleen masaa'il badan oo khatar ku ah bulshada aakhiradeeda marka si dadku isu ilaaliyaan anagu waxyaabaha aanu aad u dhiirigelina waxaa ka mid ah bangiyadu waa inay qaataan standardska islaamiga ah ee caalamiga ah ee jira haddii kale si kastay u dadaalaan meel ma gaarayaan waxaana wax ilaahay lagu mahadiyaa Sombank inuu qaatay macaayirta ayofi waa hay'ad bunuugta islaamka u qaabilsan standardizationka marka bunuug waxaa muhiim ah macaamiishu ama dadku markay bangi dooranayaan inay dhowr wax ku doortaan markii dhaweed waxaa la sheegay bangigu haddii marka hore sharciga lagu aasaasay aysan ku qornayn bangigu inuu yahay bangi islaam waxaa kaloo la sheegay bangigu inuu leeyahay shariica board waxaa kaloo la sheegay in bangigu uu leeyahay qayb u qaabilsan dabagal iyo shariica audit waxaan kaloo ku dari lahaa anigu oo aan waajib ahayn laakiin wax weyn taraysa in bangigu uu adabtigareeyo standardska caalamiga ah shariicada keligeen ma dabaqayno si loo yareeyo khataraha iyo dhibaha iyo dadka la cunsiyo xaaraan bangigana loo ilaaliyo una qayb uga noqdo horumarka macaayirtaas sharciga ah ee standardka ah ayofi oo kale bunuugta leh waxaan isleeyahay way ka horumarsan yihiin wayna ka mudan yihiin in la mucaamilo mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinaya waxaan idinku casumaynaa dhammaantiin bal horta si aad cilmigan iyo nadawaadkan qayb uga sii ahaataan waxaan idinku casumaynaa marka hore inaad join garaysaan page-ka Sombank dhammaantiin marka labaad waxaan idinku casumaynaa inaad qayb ka noqotaan dadaalka khayrka ah ee lagu horumarinayo mujtamaca waxaana looga bedelayo dalka wasiirku arrintu sheegay waa in la maalgeliyo mashaariicda waaweyn gacantaan ku haynaa waxaan rajaynayaa mashaariic aan hore waddanka looga maalgelin mar dhow professor Samatar baa ka warhaya in la soo bandhigi doono marka dadaal waa jira macaali wasiir waxtar u noqon doono waddanka inta dadka hoose la soo kabana waa muhiim ayay leedahay muhiimadaas ay leedahay marka mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinaya daraasadana ma noqon doonto forumkana kii koowaad ma noqon doono Sombank Bank for